cudurkii waad u jeedaan maantay banaadir weli waa ku dhex jiraa waa qasahayaa goboladii waa gudbay koonfur galbeed Somaliland Puntland Jubbaland waxa ugu yaraa meesha u maleynaya hadda Hirshabeelle iyo Galmudug walaalayaal haddaan taxadir la sameyn oo aadna taxadirkiina xoojinina waxaad ogaanaysaan idinka dhan waa in saameynaya dhalinyaradii markaan isla ogeyn oo aan si fiican u wada hadli jirnay maantay xaalku sidoo hore waa ka sii daray sababta awal banaadir kaliyo ahaa hadda wuxuu gaaray goboladii hadduu gobolada gaarana hadda goboladu dhalinyaro u badan ayadana hadda waa inay taxadiraan waa inay dadaal badan muujiyaan waa inaysan noqon dilaaga daahsoon bal ay noqdaan badbaadiyaalka waalidkooda iyo badbaadiyaalka naftooda iyo badbaadiyaalka qaranka oo dhan halka ficil oo wanaaga oo aad samaysid oo aad ku dhaqaaqdid inaad naftaada xataa ku badbaadisid ogow waa ripple effect waxa la yiraahdaa sida adoo dhagax biyo fadhiyo ku tuurtay waa aragtay inta mawjadooda samaysmaysa halkii adiga kaliya oo kugu dhacay intaasoo meel ayuu gaarsiinaysaa waa ka tiro halkii qof waxaan niri maalin dhaweed 3 qof uu gaarsiinaya hadda 10 qof ku dhaco oo kiiba 3 qof gaarsiiyo kii kale 3 qof gaarsiiyo kii kale 3 qof si gaarsiiyo waa geometric progression saas u soconaya oo logarithmic la yiraahdaa kor aada ilaa uu dadka dhan wada saameeyo haddaba adigu dhalinyaro u adkaysan kartaa difaacaga waa ka fiicaya difaaca waayeelka dhaqdhaqaaqa waa ka badan yahay dhaqdhaqaaqa waayeelka marka adu dhowr jeer dhaqdhaqaaqaysa asagii laakiin asoo sokorna qaba dhiikarna qaba difaacuna sidiisoo kale difaacu sidiisa waxaa maanta idin sheegaya difaaca jirka immunity-ga la yiraahdo oo cudurrada la iskaga difaaco waxaad ogaanaysaan da'du markay korortaba asna waa sii yaraanay da'du la socda awoodii iyo taagtii yaraatay ayuu asna la socda waa yaraanaysa taagtiis sidaas way marka waxa keenaya in waayeelku ay aad iyo aad u noqdaan kuwa ugu nugul oo cudurku dilhayo hadda marka soo inaad dadaal badan muujisid maaha baabuurka aan break lahayn oo aad horboodaysaan dhalinyaro waa inaa dhagxaanta u dhigtaan idinku joojisaan waxaan idinka ahayn oo jooji kara male haddaad u fiirsataan waddankeena maanta waa xiran yahay waagi hore cirka markaan fiirshaba diyaarad socotaan arki jiray maanta diyaarad socota male waddanka dhammaa waa iska dansan yahay maahan marka adduunkii oo dhan waa saas u wada damay adduunkii marka adaa lagaa raba inaad furtid adduunkii adaa lagaa raba adduunkii inaad u hiilisid weliba qarankaaga iyo dowladdaada maanta taagta daran leh oo dhaqaalaheedu saas yahay oo 30 sano ku soo jirtay dagaal oo dhibaato badan la kulantay waxa adaa lagaa raba inaad kii dhisay aad noqotid oo see ku dhisaysaa waxa ku dhisaysaa dhibaatada jirta ayaad ka deynaysaa haddaa dhibaatada ka deysid ayaduna waa yaraanaysaa maahan in aad ku leeyahay adaa dhibka ku wada waa cudurka waxaan ka hadlay sideedo hadalka aan leeyahay cudurkan COVID-19 ayuu ku wajahaya COVID-19 haddaan dhalinyaradu iyadu istaajin wax istaaji kara ma dhalinyaradu marka maskarada qaata gacmaha iska dhaqa haddii gacnaha aad saabuun weysid waxaad ku sameynaysaa tanaad ku shubaysaa gacnahaaga tanaad gacnaha ku shubaysaa markaa ku shubto waa marmarinaysaa oo ku dhaqaysaa laftigooda wax tar wey meesha aad taabatid ayadaana marinaysaa waa laga rabaa suuqaaga adoo shaqaysanaya qofka kale iska jiro qof walba duu mas'uuliyadiisa qaado midka kalena ku dhici maayo adna kugu dhici maayo waxaa la rabaa marka inaad qofka aad ka durugtida laga rabaa masaajidda ku tukanaysid kala durka salligaaga geyso musallahaaga geyso gacmaha isoo gurigaaga ku soo weesayso dadaal noocaas la iska rabaa waxa laga rabaa oo kale waad ogtahay maantay shaqo la'aan baa dhacday maxaa jira dhaqaalihii hoos u dhacaya haddaan ka soo qaado dadkii duulimaadka ka shaqeyn jiray oo dhan maantay si gaar ah ay arrintaas u saameysay hadda adaa laga rabaa inaad waddanka furtid dhalinyaro haddaad aad waddanka furin cid kaloo furi karaysa male maxaad ku furaysaa waa inaad cudurka faafintiisa ka qayb gashid inaad xakamaysid waa in aanu meeshaan maanta soo istaagayo dhalinyaro timaado oo ka hadasho waa inaad funaanadaha ku soo qoratid badbaadi waalidka badbaadi qarankaaga aad ku socotid magaalo waa inaad ku faantid tan waxaan ku yiri waa quruxdaada waa fashion weeye waa quruxdaada waana badbaadadaada waana badbaadada dadka kale oo dhan marka kelimadahaasi waa kelimado qoto dheer macna qoto dheer ay sameynayaan haddii aad hirgelisana hadda waa guul dhalatay oo waddanka iyo u dhalatay haddii aadan hirgelinna waa wax socdo oo dhibaato ah oo nagu sii soconayo weeye haddaba waxaan isku ognahay ha noqon dilaaga daahsoon isbadbaadi waalidka badbaadina qaranka wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu